halkani waa janaalka Somali Safari. asxaabta sharafta leh ee ku xiran janaalka Somali Safari oo aad uga barateen in aan muuqaalo inkaga soo gudbino bilicda iyo jawiga quruxda badan ee dalka, gaar ahaan goobaha ku wacan dalxiiska iyo damaashaadka, kuwaas oo soo jiitay asxaabta ku xiran barta aanu ku leenahay YouTube-ka Somali Safari. muuqaalka waxa aan ku qaadaa dhigaynaa goobo dalxiis oo cajiib ah, kaas oo gabi ahaanba aan kaga hadli doono safar dalxiis oo ay shirkadda Somali Safari dalxiisayaal ku geysay goobo iyo deegaano ka tirsan dalka. kooxda dalxiisayaasha ayaa ka koobnaa 6 safar ah ay ku dalxiiseen 11 maalmood goobo ka mid ah koonfurta iyo waqooyiga. safarka ayaa waxa uu ka bilowday magaalada madaxda dalka Muqdisho, halka oo ay ku qaateen jawi qurux badan iyo damaashaad ay dalxiisayaashu ku tilmaameen mid ka mid ah safaradii ugu xiisaha badnaa noloshooda. kadib waxaa safar dhanka hawada ah ay ku tageen magaalada Garowe ee caasimadda Puntland, oo ay ku qaateen jawi kale oo wacan, waxayna kaga sii gudbeen magaalo xeebeedka qadiimiga ah, mid ka mid ah astaamaha dalka ee taariikhiga ah oo ay guulaystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga wacdaro loogu dhigay. waxa aanu ka hadlaynaa waa degmada qadiimiga ah ee Eyn, oo aan muuqeeda iyo maqaamkeeda aan si gaar ah uga hadli doono xilligeeda. daawasho iyo dabaal kadib waxa ay dalxiisayaashu u xirxirteen dhanka degmada soo saarta boqortooyada Puntland ee Qardho, halka oo ay kaga sii tallaabeen xarunta ganacsiga Puntland ee Boosaaso. bilicda badda cas iyo badar qaasim ay dalxiisayaashu ku dhiirsadeen ayaa looga sii ambabaxay dhanka gobolka Sanaag. kadib rakabkii buurihii goolis iyo dooxooyinkii ay xooluhu dul cagaageen, waxa ay ku hameen dhaxeen magaalada qadiimiga ee Badhan. waxa kale oo ay dalxiisayaashu u tallaabeen dhanka Somaliland, iyaga oo booqday magaalada Ceerogabo, buurta Daalo, magaalada Burco, buurta Sheekh, magaalada qadiimiga ah ee Berbera, xarunta dhaqanka ee taariikhiga ah ee Laasgeel, oo ay ugu dambeyntii safarkooda ku soo gabagabeeyeen caasimadda Hargeysa. waxa ayna si weyn ugu mahadceliyeen shirkadda Somali Safari oo u sahashay safarkooda. haddaba asxaabay, la soco muuqaalka kale ee aanu kaga hadli doono mid dalxiisayaashu goobihii ay booqteen iyo sidii dadku ay u soo dhaweeyeen.